Assalaamu calaykum. Atoorayaashii dhintay iyagoo jilaya filimadoodii ugu dambeeyay jilayaal isugu jira rag iyo dumar oo ka tirsanaa shirkadda filimada India ee Bollywoodka ayaa geeriyooday iyagoo barta ugu jira jilista filimo. Sushant Singh Rajput wuxuu geeriyooday bishii Juun ee sanadkan 2020. Jilaagan oo ka mid ahaa atoorayaashii ugu caansan ee sanadihii dambe soo baxay ayaa isdildilay isagoo ku sugan gurigiisa, waxaana la garan waayay sababta keentay inuu isdildilo, laakiin waxaa la sheegay inuu jacayl dartiisa isu dilay. Sushant Rishi Kapoor wuxuu geeriyooday bishii Abriil ee sanadkan 2020. Dhimashadiisi waxay timid wax yar ka hor inta aan la dhammaystirin duubitaanka filim. Rishi Kapoor wuxuu shaleemooyinka filimada lagu daawado qabsaday sanadkii 1973 isagoo hoggaan u ahaa filim ka hadlayay qiso jacayl oo dhexmartay dhalinyaro. Laakiin markii ugu horreysay Rishi Kapoor wuxuu jilista filimada ka soo muuqday isagoo caruur ahaa, waxayna ahayd sanadkii 1970 wuxuuna qayb ka qaatay filimkii uu aabihiisa Raj Kapoor jilayay ee Mere Naam. Irfan Khan wuxuu geeriyooday bishii Abriil ee sanadkan 2020. Irfan Khan oo u geeriyooday nooc dhif ah oo ka mid ah cudurka kansarka ah isagoo 53 sano jir ahaa. Jilaagan waxaa dunida oo dhan laga bartay markii uu ka soo muuqday xirfad cajiib ahna ku soo bandhigay filimkii lagu magacaabayay Solam Millionaire. Khan wuxuu caan ku ahaa jiliinkiisa aan caadiga ahayn iyo fahamka, iyadoo dad badan ay u garanayaan mid ka mid ah jilayaasha ugu xirfad fiican India. Inkastoo uu filimo badan soo jilay, dad badan waxay u malaynayaan in filimkiisa ugu dambeeyay uu ahaa Azaghar Medium. Siri David oo ka mid ahayd atriishooyinka jilitaanka loogu dambeeyo India waxay magaalada Dubai ku geeriyootay bishii Abriil ee sanadkii 2018, xilligaas oo ay da'deedu ahayd 59 sano jir. Filimkii ugu dambeeyay atriishadani hoggaanka ahayd waxaa lagu magacaabaa Maam, wuxuuna soo baxay sanadkii 2017. Atriishadan ayaa u dhimatay markii ay si xad dhaaf ah u cabtay khamri. Om Puri wuxuu geeriyooday bishii January ee sanadkii 2017. Kadib markii uu dhintay waxaa soo baxay ilaa iyo 6 filim uu qayb ka qaatay. Om ayaana u geeriyooday wadne xanuun. Shami Kapoor wuxuu bishii Agost ee sanadkii 2011 u geeriyooday kili xanuun. Kapoor waxaa si weyn loogu yaqaanay habkii cajiibka ahaa ee uu bandhigyadiisa u samayn jiray. Atoorahan wuxuu dhintay asigoo 79 sano jir ah. Filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa Rockstar oo la sii daayay bishii November ee sanadkii 2011, markaasoo ay ahayd dhimashadiisa kadib. السلام عليكم. مقعي وعد وقصلي بدنا هداك عصبتاي ماشو سبسكرايب لايك كومنت شير.